بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada solar portal blog safarka waxaan ku suganahay garoonka caalamiga ah ee Istanbul International Airport oo bartamaha magaalada qadiimka ah Istanbul u jira ilaa iyo 50 kilomitir u jira waa airport sida la sheegay kuwa ugu casrisan adduunka waa airport runtii aad u weyn oo dhismihiisa grand ah ku aragtaan diyaaradaha aad u fara badan diyaaradaha adduunka ugu badan ayaa ka soo dega kana dhoofa isla markaana transit ku ah waad aragtaa inta diyaaradood waxaan eegayaa diyaaradda u socota caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho ayaan halkan ka eegayaa inta badan 2150 waxaad arkaysaa geeska waxaad ku arkaysaa diyaaradda Djibouti inay ku qoran tahay waddan kasta oo adduunka ayaa laga baxay Djibouti ayaan u jeedaa waa ka dhanka midig ayay ku qoran tahay Djibouti oo saacadeedu halkan ay ka baxayso 12 ay ka baxayso runtii waa madaar aad u weyn oo waqti badan la galay sanadkan bilowgiisii ayaa la furay waqti hore in la furo ayaa la rabay waqtigii lagu furi lahaa lama furin aad ayuu weyn yahay waxaa loo kala socdaa meelo qaarkood ilaa 7 kilomitir ayaa loo kala socdaa gees ilaa iyo gees marka diyaarad aan ka bixin adduunka ma jirto waxa ku yaala maqaayado dukaamo aad u fara badan oo dad aad u fara badan oo adduweynaha ka kala yimaaday ay ku kala gooshayaan duty free-ga dukaanka la yiraahdo meelaha lacagaha lagu bedesho iyo waxaan in tusayaa mar dhow dukaamada ugu caansan adduunka ee laga dukaamaysto marka meel isu dhow ma ahan marka haddii aad isla waqti yarayda haysta waxa laga rabaa meelaha qaarkood in 30 daqiiqo loo socdo ayaa laga yaabaa marka magaaladu saayid ku sheegay wuxuu u jiraa ilaa iyo 50 kilomitir bartamahana ilaa iyo waxa loo raacaa la bixiya lacagta lagu raacayo taksiga haddii aad ka timaad Soomaaliya meel kasta ka timaadid waxaad bixinaysaa ilaa iyo inta u dhaxaysa 40 ilaa iyo $50 ayaad bixinaysaa basasna way jiraan $12 ah oo caasi waalideynku kala ah way jiraan marka waxyaalaha indhaha ku qabanaya ugu horeeya waa spacious sidoo space u leeyahay meeshan space aad weyn uu leeyahay dadku aad ay u fadhiistaan ay ka dukaameystaan waxyaalo badan dukaamada adduunka ugu caansan haddii lacag aad bedelanaysid iska ilaali ha ka bedelanin weliga garoon lagama bedesho waayo waa qaali tusaale ahaan xilligan aan duubayo oo dhammaadka bisha Oktoobar 2019 boqolka dollarka Mareykanka waxa lagu bedelaa 590 liiro lacagta wadankan Turkida ah laakiin airport waxay ku oranayaan 490 ayaa u dhaxaysa marka magaalada ayaa laga bedeshaa tagaasidana haddii ay ku arkaan in aad tahay qof magaalada si fiican aan u aqoon waxay ku marsiinayaan meelo kala duwan marka meelaha kala duwan ee aad ku aragtaan dusha waa dhanka lagu nasto ee la fadhiisto haddii aad haysatid miles and miles way bixiso shirkadda Turkish Airways oo mar walba muhiim ah mararka qaarkood waxaa lagu helayaa ticket free ah isla markaana point ayaa ku aruuraya marka space-ka ayaa cajiib ah iyo open space-ka sokow dushana qoraxdu way soo gashaa roobna ma soo galo marka billions ayaa la geliyey waxayna kala leeyihiin A ilaa iyo F marka iska ilaali waxaad arkaysaa A-ga B C D E F inta loo kala soconayo F-ka ayaa ugu dheer diyaaradaha Europe North America aadaan 8 ilaa 16 daqiiqo waa meel loo lugeynayo marka duty free aad ayuu weyn yahay runtii alaabaha halkan lagu iibiyo iyo meelaha kale meeshan ayaa qaalisan intaan arkay laakiin dadku waxay mudaan airport inay ka raqiisan yihiin tusaale ahaan barfuunka Chanel-ka la yiraahdo kale oo 100 mil ah ama mililitir ah waxaa ka raqiisan ilaa $20 magaalada London ee waddanka Ingiriiska oo lagu tilmaamay magaalada adduunka duty free-geeda ugu raqiisan yahay ama dhar haday ahaan wax walba day ahaan lahayd marka dhanka security-ga dhanka checking-ka aad ay u fududahay immigration-ka aad ay u fudud yahay nothing complicated wax complication haba yaraatee ma jiro adigun baa waxa laga doonayaa sharciga inaad u hogaansanaatid haddii aad isku daydo waddankan in aad kaga soo baxdid qaab baasaboor qof kale leeyahay iyo haddaad u socotid Europe North America waxaad maraysaa 4 meelood oo control ayaad maraysaa oo security-ga aad loo adkeeyay wax walba ku jira marka iska ilaali waddankan bug loogama soo baxo adigoo baasaboorkaagii watay iska lahaa
ayaaba waxaa kugu dhacaya qalqal ayaa kugu dhacaya dukaamada ugu waaweyn ee adduunka ayaa ku yaalla immigrationka wuu fudud yahay haddii maalisa tahay saf lama galo marka kii hore haddii loo fiiriyo Ataturk haddii loo fiiriyo kan runtii spacekiisa aad ayuu weyn yahay marka saan ku sheegay dukaamada way kala yihiin dukaamada qaarkood waa dukaamo iska maalayacni ah oo waxyaalaha raqiiska laga gato laakiin waxyaalaha aan aadka ula dhacay waxay tahay dukaamada ugu caansan adduunka waxaa lagu magacaabaa dukaamada marka Soomaalida aqoonin dukaamada Boos Caato ayaa lagu magacaabaa ninka aad taqaanaan ee Boos Caato ee Soomaalida ugu labiska badan ugu fiican adduunka 20 sano ugu dambeeyay dukaamadu ka dukaamaysto waa kan boorsooyinkiisu waa Hermes ayaa laga gadaa Boos Caato haddii aan sii fiiriyo dhankan Fendi ayaa halkan ku yaalla waxaa kaloo ku yaalla dukaamada Gucci ayaad arkaysaa oo boorsooyinka Boos Caato kabaha meelaha laga gato marka runtii spaceka ayaan aad ula dhacay garoonkan dhankaas waa dhankii laga soo gelayay immigrationka iyo checking security laga dhigay xayeysiimo aad u fara badan iyo designka oo si cajiiba loo sameeyey marka dukaamadan caalamiga ah ee ku yaalla halkan ayaan iminka si fiican u sii eegaynaa kaameradana waan dheeraynayaa tabcan waxaa lagu duubayaa saad ku aragtaan kaamerada caanbaxday hadda ee iPhone Max Pro ayaa lagu duubayaa oo runtii cajiiba qaabkay xuduud waxaa la socda bahal yar oo ku dhegan marka dukaanka Fendi waa ujeedan Prada ayaa ku yaalla meeshan oo la yaqaano kulli anaga kama gadano Boos Caato kaliya aanu deynay kan waxaa kaloo ku yaalla Celine Dior ayaa ku yaalla iyo dukaanka caanbaxay ee adduunka laga yaqaano kabaha iyo wax walba lagu iibiyo waxaan arkaynaa mar dhow la yiraahdo Louis Vuitton runtii Louis Vuitton kabaan hadda saan u eegay istaagaan ka dhici lahaa kaba yar oo lugaha saan la gashto oo maqaar ah ayaan arkay markaan bareeska saan u fiiriyey waxaan mooday inay tahay $20 yaan u maray 20 kaliya aan arkay waxaa la yidhi waa $2,000 waa kaba xataa banaanka qaadan lahayn markaas waxa qalbigay soo galay wallahi kii dul yar ahaa meeshan inuu ka gatay iska rafacta looma u malayn maayo dul yar in loo ogolaanayo meeshan inuu soo galo dul yar Louis Vuitton shaqo kuma leh marka dukaanka ka soo horjeedan waa Bulgari oo dahabka adduunka ugu caansan ee New York laga gado marka runtii waa reer Turki hadday kan Soomaali nooga dhisi lahaayeen aad baan ugu mahad celin lahayn inkastoo haddaba ay noo dhiseen mid iska yaroo iska baaba macbala marka dukaanka waa kan caanka baxay memberku ka yahay Boos Caato uu memberku ka yahay waa kan saad ku aragtaan boorsooyinkiisa iyo alaabihiisa way yaalaan dhanka kale dhaxdana dhow way banaan tahay waa meesha VIP-da aad u jeedaan dadka ma maraan marka spaceka ayaa la isku raacay dadku aad bay ula dhaceen sawirey isaga qaadaan qof walba meeshuu ka soo galo ayuu ka bilaabay dhismaha weli wuu sii socdaa waxaa la yidhi ilaa iyo 40% kaliya ayaa la dhameeyay ayaa la yidhi intan waa 40% waxa u dhiman inta kale 60% duty free-da dhowr ayaa meesha ku yaalla oo waxyaalo kala duwan sameeya marka qof walba oo meeshan u soo safraya duty free-ga barfuumada iyo waxaas waa iska qaali laakiin soo indhaindhay arka diyaaradda Soomaaliyana mar dhow ayaa la wacaya wicitaan ma jiro horta runtii haddaad sugayso aeroboorada la iska wici jiro kale ma jiro waxaan kaloon aad ula dhacay open space-ka dukaamo ay ku dhex yaalaan dukaanka caanka ah ee Paul and Shark la yiraahdo u jeedaan dadkuna way fadhiyaan waa laga dukaamaysta kafe ayaa ku yaalla saacada ayaa lagu iibiyaa laakiin dukaanka ugu caansan adduunka waa kan Bulgari saacadaha dahabka dadka isguursanaya aroosaya waxyaalaha kala duwan sameynaya halkan gabadha keentid isagay ka dhacaysaa waa dukaanka caanka ah ee Bulgari ayaa ku yaalla marka dhankan kale haddii aad eegtaan waxaad arkaysaan awal Ataturk wuxuu ahaan jiray mid aad iyo aad u buuq badan oo duug ah oo waqti ku dhow 70 sano dhisnaa laakiin kan spacekii ayaa maaragtay aad loo weyneeyey qof walbana wuxuu helayaa space uu maro ama meel uu fadhiisto ayuu marayaa sidaa awgeed waxaad arkaysaa dadka intooda badan faraajada iyagoo waaweyn dadka waayeelka halkan karaan loo jeedaa iyagoo kala duwan waddan kasta Barcelona Khartoum Mumbai London Tehran Nairobi aad u jeedaan kan Soomaali hadduu soo galo isagana waan eeganaa Stockholm Bahrain Copenhagen Zanzibar kan Djibouti soo galay marka Muqdisho iyo Djibouti isku xidhay ayuu soo galayaa wuxuuna soo galayaa 2150 kuwa ka dambeeya marka service kala duwan ayaa jira dadka disable-ka
curyaanka aan socon karin serviskooda ayaa loogu sameeyaa airportka xaq ayaad u leedahay haddii miles aad haysatid waxaan dhihi lahaa qof walba Turkish Airways mar walba raaca miles samayso xataa saf lama galo saf gali maysid waad u jeedaa dhankaasna waa albaabka hore laga soo gala airportka madaarka laga soo galo ayaa ah kan marka iiga intaan ayuu kaa jiraa siiga dhanka ayuu kaa jiraa midig f iyo d halkan ayuu kaa jiraa waad u jeedaa information desk aad u weyn ay halkan ku leeyihiin dadka raaca diyaaradooda aad ayay u qiimeeyaan ilaan diyaarado kale oo fara badan ayaa ka baxa adduunka dhan ayaa la isaga gooshay oo la isaga yimaada marka ma ahan keliya in waddankooda iyo waddamada u dhowdhow maaha adduunka ilaa iyo waxaad arkaysa dad ka yimaaday Brazil ka yimaaday Argentina Chile meelaha ugu dambeeya adduunka ay tagaan waxaad arkaysaa waddan walba oo adduunka ah inta looga duulay iyo transitka ugu badan waa iyaga ma jiro diyaarad adduunka la mid ah oo intaas waddan tagta transitna ku samaysa magaaladan oo habkeeda ah ama meesha laga kontroolo ah marka runtii waa aad iyo aad ayuu u qurux badan yahay madaarkan aad u jeedaan Istanbul markii hore waxaa islahaa magaca waxaa la dhihi doonaa kii qadiimka ahaa qofkii abaabulay jamhuuriyaddan Turkey oo ahaa aabihii Turkiga la yiraahdo Atatürk ayaa la yiraahdaa laakiin magacii waa laga bedelo waxaa loogu yeeray kaliya Istanbul Airportna runtii haddii loo eego aad ayuu uga fog yahay waxaanu ka hadlaynaa ilaa iyo muqdisho ilaa iyo daafeed ama wallaweyn qofba suu yaqaano in ay isu jiraan marka lamaba dhihi karo sida laakiin magaaladu way soo gaaraysaa marka open space kala duwanaa waa kan dukaamadii waa kan iska ilaali mar walba taksiga aad ka raacaysid airportka bartamaha magaalada Suudaan waxay ku geynaya $40 ilaa iyo $50 ayuu ka qaadayaa meelaha qaarkood wuxuu ka qaaday ilaa iyo 30 waxay ku xiran tahay ilaan Istanbul ayaa aad u weyn oo kala dheer mar walba waxay ku xiran tahay meeshii aad u socotay ku xiran tahay transitka haddii aad tahay toos aad u socotid kulli dad badan ayaa intay ka soo degaan Ankara aadaan ama gobolada kale ee waddanka ayay sii aadaan marka waxaan isleeyahay kulley akhbaar fiican iyo idea dadka u soo duulaya way ka haysanayaan airportku waa weyn yahay markaa ka soo degtidna haddii baasaboor Ingiriis aad wadatid iyo baasaboor Yurub aad wadatid $30 ayaa laga qaadayaa hal daqiiqo waqti keerna visa lagugu siinayaa waa istaambayar waa lagugu dhufanayaa kadibna horaad ka dhaqaajinaysaa banaanka meesha way isku dhow yihiin meesha tagaasida laga raaco ama haddii caasi waalideynka $11 ku raacdid isna aad ayuu ugu dhow yahay marka intaas oo macluumaad ah waxaan idin soo gudbinayaa blogga Solar Portal ee dhanka safarada oo saa la socotaan meelo badan oo kala duwan safarada markaan ku tago aan jeclahay in aan idin soo gudbiyo ugu dambeyn waxaan idinku soo xirayaa in aan dusha idinka tuso meesha ugu dheer ee kaamirada ay gaari karto oo intana kaamirada intaan ayay gaartaa waad u jeedaan hal mar ayaan ku wareejinayaa intaan ayay gaaraysaa kaamirada oo runtii 2 mitir ka sii dheer waxaan ka salaamayaa garoonka caalamiga ah ee Atatürk garoonka caalamiga ah Istanbul kan Atatürk ma ahan garoonka caalamiga ah ee Istanbul International Airport oo ku yaala caasimadda qadiimka ah ee ganacsiga Ottoman Empire ee magaalada Istanbul anigoo Cabdinaasir Ismaaciil intaa wada kun doona waxaan kaga tagayaa billahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh